waxaa soo gaaray khasaare ah wiilasha calooshoodu shaqaystayaasha argagixisada SSDF waxaa khasaare soo gaaray 7 nin oo dhimasho ah oo loo garanayo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel waxaa dhaawaco 24 nin oo dhaawac ah baa isbitaalka iyagana u taala waxaa ku dhacay siyaasad jabca way waluuna dib nin gardar ma guuleysto jab xun baa la eegtay daaqadaha laga togtay meesha ay joogeen baa lagu tagay 30 gaari iyagoo ah baa waxaa fooda geliyay 13 gaari oo ay wataan jamaahiirta warsangeli khaasatan jifida loo reer Geesood hadda gurmadka la aan helay xogta aan helay gurmadka wuxuu ka soo kala baxay 4 beelajood deegaanada Puntland dhan ciidamadii warsangeli oo joogay kulli waa ay dareereen iyagoo xoojinaya dhaqdhaqaaqyada ka socda dhahar dhaqdhaqaaqyada ka socda ay sameeyeen jamaahiirta warsangeli iyagoo xoojinaya difaacanaya deegaankooda iyagoo diiday duulaankan qaawan oo imaaraadka uu soo qaaday iyo nimankan isaaq ay deegaan ku soo qaadeen ay fulinayaan jamaadan argagixisada SDF jaa dhankaar oo hadda ka baxay furinta soo wata 15 gaari